allow adigaan ku aaminayo awoodda sarraysa waa taade ilnaxariiseed allownagu eeg ilnaxariiseed allownagu eeg ilnaxariiseed allownagu eeg allow ibna aadan baa nahayo gefkeennu adduunka uu rogaye allow istikfaarta uu naga yeel allow istikfaarta uu naga yeel allow adigaan ku aaminayo awoodda sarraysa waa taade ilnaxariiseed allownagu eeg ilnaxariiseed allownagu eeg ilnaxariiseed allownagu eeg allow eelkiyo qabraa isuge markay ikhtibaar su'aashu adkaan afkayga ku beeg islaamnimaduun afkayga ku beeg islaamnimaduun الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha muslimiinta ee ka soo qayb galay xafladan qiimaha iyo qaayaha mudan salaanta islaamka kadib waxaan idinku soo dhaweynaynaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aan ugu talagalnay qalinjabinta ardadii ama gabdhihii wax ka baranayay dugsiga alnuur ee xaafadda esbo iyo guud ahaan xafladii xiritaanka guud oo isku jira marka waqtigu aad nooga daahay dhinaca farsamada awgeed insha allah wax badan ma sii oran doono barnaamijku wuxuu noo noqon doonaa sida soo socota aayadaha qur-aanka kariimka aan ku furi doonaa haddii ilaahay raado kadib wax yar oo dulmara ayaan ku samayn doonaa madarasadan iyo heerarka ay soo martay salaada casar ayaan wada tukan doonaa insha allah salaada casar markaan tukanana waxaa majaraha la wareegi doona macalin xasan iyo gabdhihiisa oo ah dadkii hawshan xooggeeda ay maanta ku socotay in bal ay noo soo bandhigaan waxyaabihii ay barteen iyo wixii ay dadka maanta ugu talagaleen intaa kadib waxaa jiri doona kelmado waanooyin ay noo soo kala jeedin doonaan sheekh maxamed xasan shiikhow iyo sheekh cabdulqaadir isxaaq aadam oo labadaba kelmado kooban soo jeedin doona insha allah kadibna cuntadii ayaa noo xigi doonta marka barnaamijka sidaasaan u daadihin doonaa hadda waxaan kusoo dhaweynayaa anas maxamuud cabdi inuu noogu furo aayadaha qur-aanka kariimka ah ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جزاه الله خير الجزاء أنس محمود عبدي. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن قرآنك أنت يرى أوهرتنا ودم يستره وناقص وكحفظنا وكسي وضه isagay inta la midka ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo badiyo. intaa kadib ikhwaani, haddii wax yar oo kooban sida walaalaha iga codsadeen aan idin dulmaro, madarasadan maanta dadkeedii ugu horreeyey qur-aankeeda ay xafideen, ama jiilkii dambe aan idhaahdee iyadoo ay jireen jiilal hore uga baxay, laakiin jiilkii dambe ee hadda dadkii ugu horreeyay ay ka soo baxeen, waxaa xaafadan esbo ay ka bilaabatay 1994. heerar kala duwan ayay soo martay. xilli waxaa jirtay guryo lagu dhigan jiray oo waddanka markaa lagu cusbaa 94 aanay jirin dugsiyo furan, aanay jirin tasiilaadkan hadda la haysto iyo howlahan isku qoofalan ee ay dhib ahayd xitaa in la helo qof wax u dhiga. muddo markii guriga lagu jiray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gartay markaa in loo wareego meel yar oo aan leenahay wiigii hal maalin ama saacado labada maalmood oo weekendhiga ah, meeshaasoo ahayd meel ay ugu talagaleen dadka waddankan ku nool in dadka ajaanibta ah ay isugu yimaadaan oo ay nin walba wixiisa ku qabsadaan. waxyaabahan xusuusta waxaa ka mid ah in buudiste iyo mushrikiin iyo kuwo diin walba aaminsan ay naga hormari jireen, markay ka baxaanna annaga aan soo geli jirnay. heerarkaas ayay soo martay ilaa markii dambe ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qadaray in la helo masjidka hadda xaafadda ku yaala ee masjid annuur ee xaafadda iska leedahay. halkaasoo markaa madarasadii markii la yimid ee caga dhigatay. taxfiidka qur-aanka maanta runtii waxaa aad maaragtay loogu farxo ah in 11 qof, weliba waa tiro aad u yar marka la fiiriyo Helsinki hadda masaajidka weyn ee Basila Al-Huda shalay tiro intaas la eg ayaa ka baxday. meel walba waa sidaas. isbedel fara badan ayaa moodaa in hadda uu ku dhacay qur-aan barashadii, waana nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay iyo bashaa'irta muujinaysa in diintan loo soo noqon doono. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay noogu bishaareeyey in diintan ay jiri doonaan dad mar kasta u gargaara oo soo noqon doona. waxaa weeye carruurtan maanta gabdhahan geesahayga fadhiya maanta waa gabdhihii ku dhashay xaafadan ay hadda qur-aanka ku xafideen ku dhashay way. intooda badan qaar kaloo la da-a oo iyagu Soomaaliya kusoo dhashay way jiraan, laakiin intooda badan oo waddan gadaal ka yimid, intooda badan waa gabdhihii ku dhashay meeshaan way. qur-aanka maalinkii loo bilaabaya alif ba'da waa taagnay. waxyaabaha cajiibka badan waxaa ka mid ah marnaba laguma fakaraynin in sidan in la eg ay qur-aan u xafidi doonaan. macnaha waxa caado ahaan jirtay ama sidii ay 10 sano ka hor culimada looga caban jiray markii shirarka la yimaado, cunugii wuxuu dhaafi laayahay qad samic, wuxuu dhaafi laayahay, waxay ahayd juska saddexaad unbaa lagu jiirayn jiray, lagu noqon jiray. laakiin arrinkaas maanta waxay noqotay arrin la cadeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyey, dadaalkii waalidka, dadaalka macallimiinta khayr allah ka siiye, in la heli karo dadkii halkan ku dhashay ee laga yaabo qaarkood af Soomaaligooda xataa inaysan si fiican u aqoonin inay kitaabka xafidaan. in la heli karo haddii ay jirto doonis iyo rabitaan uu jiro, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la garab galo. iyaga hadhow ka sheekeyn doona. madarasada caruur fara badan baa dhigata oo isugu jira bilow kuwa dhexdhexaada, laakiin gabdhaha ayaa waxay yihiin maaragtay dadka ugu wanaagsan oo ugu sarreeya. runtii wiilasha iyo gabdhaha aniga waxaan aad u amaanaa markasta gabdhaha, maxaa yeelay gabdhuhu waa dadka hadda amoodid in ay dhinaca diinta ku firfircoon yihiin. wiilasha laftigooda dad badan oo khayr badan way jiraan, laakiin wiilalo waxaan leeyahay gabdhaha idinka sita. gabdhahaas maanta ujeedaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in qur-aankoodaas ay dhammeeyaan, weliba si wanaagsan ku dhammeeyaan. insha allah ayagaa noo soo gudbin doona macallinkooda xasan iyo ayaga wixii maanta halkan ay ugu talagaleen. ikhwaani, marka madarasada heerarkaasi soo martay, waxaa marka la rabaa qof kastoo muslima in uu ku baraarugo in barashadan diinta ay tahay shay waajiba oo qofka muslimka saaran, ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uuna weydiin doono. waxaa la rabaa marka dadkeenna waaweyn ee waalidiinta ah in arrimahaas aan taageerno oo aan xooggeenna ku bixinno, sidii ubadkeenna u jiri lahaayeen, sidii ciyaalkaasi wax ku baran lahaayeen, madarasooyinkii loo wada ceshan lahaa, maaragtay kaalmo dhinac kastale loola daba taagnaan lahaa. waa waajibna saaran kolley wixii waana ah culimmada geli doonta. marka waxaan leeyahay ilaah mahadiis weeye heerarkaas kala duwan oo aan hadba soo kufkacaynay in aan maanta heerkaas u istaagnay. insha allah sanadka soo socda markuu bilowdana in isbedel cusub lala bilaabo oo markaa baldardar la geliyay xitaa kuwa yaryar ee hadda soo kacaya, haddii ilaah yiraahdo. sidaasaan ku talagalnay. marka insha allah waxaan leeyahay
waxaan leeyahay waalidiintii dhashay iyo idinkana waxaan idinku halmaynayaa ama hambalyo idinku soo gudbinayaa bishaaradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noogu bishaareeyey inaad heli doontaan oo aad qiyaamaha maaragtay wax badan ay idin tari doonto wax laga baayac mushtarana waxa ugu fiican ilmaha aad dhashay marka insha allah intaasaan kelmadii kusoo koobaya haddii ilaa yiraahdo gabdhaha qur-aanka dhameeyey ee 11 gabdhood halkaa fadhiya magacyadooda waa kuwa insha allah suwayda aadan cabdi kharash amaal saciid muuse amuun cabdirashiid cabdullaahi bariira cabdilxakiim xuseen khadiija aadan nuur caaisha aadan nuur xafsa aadan nuur khadra cabdirasaaq sugulle iyo yaasmiin cabdiraxmaan axmed iyo najma aadan maxamed الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد runtii waxaa farxad badan mudan waxaa wax lagu farxo ah 11 gabdhood oo boqolkiiba 90 ku dhashay waddankan aan joogno in ay qur'aanka ku dhameeyeen ilaah kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala min awwalihi ilaa aakhirihi waxaan leeyahay waxay nagu oogeen runtii xujo haddaan nahay waalid haddaan nahay macallimiin haddaan nahay arday xujo ah in qur-aanka la baran karo meeshii la doono hala joogo waxay nagu oogeen xujo qur-aanka in la baran karo ah dhowr sano ka hor waxaa laga yaabaa inaan aaminsaneen in ay tahay ciyaalka in la geeyo Makka Madiina Riyaad si qur-aan loo soo baro laakiin alxamdulillaah maanta waxaa farxad badan ah oo runtii aan ku faraxsannahay dhammaanteen inay gabdhihii qur-aankii dhameeyeen xafladoodan u joogna maanta قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون انت نير أي وحي كفي عن تهي الدنيا يوحي الأردن هو خير مما يجمعون أنا رنتي وحي أباها أنا أرني وحاد مدى امتحان رباني إلويه مركان صوماليا جوغني قفكي يقانا قرآنك وحالقود يجري looxa ma qaado boga kitaabka ama qaado waxa laga yaabaa markaad maalinta subaxii dhigato oo casrkii dhigato labada cashar oo la isku daray in ay dhan tahay ama ka yar tahay ba bog intaas ayaa inaga xagga joogno iskuul aan ku jirin halkaas luqunta inoogu jirtay alxamdulillaah halkan waxaanu ku aragnay ciyaal ilmo yar oo halkan iskuul kaga dhagan yahay xaggan axwaal kaga dhagan tahay waddankan macaasida badan jooga in ay ka baxayaan 10 bog oo noloshoodii hal mar arkin miisaal yar acraaf iyo baqara 6 suurad ee quraanka ugu dhaadheer ee ugu adag ee ugu mutashaabahaad badan ee Soomaalidu dhaxdo 6 libaax aniga hortiina fadhiya waxay ugu qaadatay 11 bilood waxay ugu qaadatay 11 bilood inaan dhigto aniga looxii Soomaaliya ka hadlaya أعراف كلي وحي وقادتي لبا بلود هل كان وحافظ يا جبر أما جبره كدمي أقل من شهر بريرة عبد الحكيم خضر السجول يا جبرها كلام وحي كدمي لحدا صورة دول أقل من شهر حقيقة بحين محل كان كتابك كأركان محربه وقريه قرآنك ما هوستي كوسيتان
meel ay mareen ilaah bay yaqaanaa. 6 libaax iyagu waxay ka dhigeen 6 bisad oo kale. alxamdulilah waxaan leeyahay waa xujo ay nagu ogeen qur-aanka in lagu baran karo halkan horta. kow shalay ayay ahayd markii aadan qur-aanka dhammaynin, xifdintiisana berri baa naga xigta. man jadda wajad raadiya, meeshaad u maraysaan idinkaa taqaana. raadiya waa aakhiradiinni iyo raadiya, qur-aanka xifdigiisa raadiya. arrintaasi xil weyn iska saara, ha ka harina. 2 macno ahaan qur-aanka markaad barato kuu dhadhamaya. markaad macnihiisa haddaadan macnihiisa garin waa iska kalimaad carabi kuu noqonaya. runtii sidaas maaha qur-aanka, maaha kalimaad carabi oo jafaafa oo qallalan maaha. macnuu samaynaya qur-aanka macnaha. macnihii markaad barato oo uu kugu socdo aayaddii way kuu hadduu cusub yahay, hadduu soo degay, shalay maantu ka macaan yahay, hadduu ka cusub yahay, hadduu ka fiican yahay, mar kasta waa fresh, mar kasta wuu macaan yahay. adiguu kula hadlayaa, ma ahun buug la xifdiyey oo macnuu samaynaya qur-aankii. markaad macnihii barato ayuu dhadhamaya macnihii raadiya. haddaadan macnihii garanaynin waxaad leedahay macnu waa halkan way isku noqonaysaa, tan mutashaabahaadkan halkan ay gelaysaa. waalidka waxaan leeyahay, waalidka gabdhahan dhalay iyo waalidka aan dhalinba waxaan leeyahay alxamdulilaahi, ilaahigii muslimiin naga dhigay. macnaha na fahamsiiyey ilmaha waxaa loo dhalaa inay ku anfacaan adduunyada markaad joogto. marka adigoo gurigaada joogto aad aragto gabadhaadiioo kuu xijaaban, qur-aanka akhrinayso adagoonan dirin, habeenbarkii soo kacayso qajafqajafteeda iyo salaadeeda aada maqlayso, halkaas laabta kuu qaboobaysaa. waa quratu cayn lagugu siiya adduunyada. qabriga markaad gasho adigoo hurdaya oo iska jiifo ayuu ajir kuu soo dhacayaa. dhag war xaguu ka yimid? caayasho aadanu ka yimid, gabadhaadii. alxamdulilah. xaguu ka yimid? hebluu ka yimid. xaguu ka yimid? taasuu ka yimid. maskiin baa tahay qabri ku jira, ma tukan kartid, ma soomi kartid, ma salaadi kartid, waxba ma qabsan kartid. laakiin maxay ilaahay ku siiyey? waladun saalix yadcuu lak, ilmo baari ah oo kuu soo ducaynaya ayuu ilaahay ku siiyo qabrigu kugu anfacay. qabriga ka soo baxo qiyaamihii imow, dadkoo qaawan baa taaj lagu xiraya adiga. taajku muxuu yahay? ilaahay baa yaqaana. waa dhar qurux badan, wanaagsan, dahab iyo wax ka fiican laga sameeyey, laga keenay jannada. dadku waa qaawan yihiin qiyaamada sida la ogyahay. yaa dhar xiran? xaafidka aabbihiis iyo hooyadiis ayaa dhar xiran. injineerka aabbihiis uma xiri karo dhar maalintaas. waxaa ka jirto dhakhaatiirta ma awoodaan, laakiin arrintaasi waxay ku dhici kartaa 30 juz ilmahaada inuu barto ku dhaqmo. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. ilaahay idin barakeeyo, xufaad wanaagsanaan rajaynaynaa. hanii'an lakum. جزاه الله خير الجزاء شيخنا ومعلمنا حسن معلن إلى خير هكسيو كالمدس إيواندس. هذا واحد باللابن دون إن شاء الله قبلها أيا نو ستين دون وحي برتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واتبع هواه فترداه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكه عليها وأهش بها. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم تقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه الغيوب
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. عن عظمة القرآن وفضله كثيرة معلومة. أيها الحضور الكرام، سأقرأ جملة من الأحاديث النبوية التي تبين. إلهي يا مهد يا مان مدن أومان تسكين وذا كيني أنا كرون ميشان مركا لا يا إلهي وحن كبر يا إنو كلهم كان أوكلنا وذا كرسي أنا كرون ugu horeyntii dhalinyarada ayaa waxaa rabaa inaa u sheego qur-aanka oo u sheego waxyar inaysan adkaysanin qur-aanka ma ahan mid adag waa wax alla noo soo dejiyey oo nuur iyo hanuun ah qofkii adkaysto ayuu u adkaadaa qofkaan adkaysana uma adkaado hadda ka hor ayaa waxay iila dhigin jirtay hooyo aada u da-weyn dugsi hooyadaas sanad gudaheed ayay ku xafitay 15 juz maanta nagama helaayo qof dhalinyaro ku xafido qur-aanka 15 juz hooyadaas tii alla ayaa u timid ilaa ay geeriyooto way jeclaan lahayd inay wado qur-aanka miinta kasoo qayb galay meesha ayaa mar kale u mahad celinaa. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير معلم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد ومعجزته الكبرى وهداية للناس أجمعين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولقد تعبدنا الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة. حقيقة فدقان لإيغو يري رير أسبا إيغو يرين أدعيان أغو فرحسان هاي ولينا حضور كانوا كالي هديئا حاضري ومر يلابو يسدح شلا أي هاد مران ديرين مران مدانو كالي حاضري أو مسلمين كان سدانو كالي وحفلين هاي wax wanaagsan qof ilaahay siiyey inaad tiraahdo ilaahu asna u barakay anna booskaasu kale i gaarsii taas ayaa la ogol yahay. waxaa kaloo sharciya maadaama xafladan maxfalkan uu yahay wax qiimi badan ummaddan iyagoo da'yar ay wax soo bandhigaan la yaab leh inaan xirsiyeyno oon isheenna ka xijaabno oon isha kalena ka xijaabno maxaa looga baxsanayaa inaan aragno mowqifkan oo kale iyo qiraa'adu markay socoto inaan dhahno ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أنان دهين مارتك لي ما قراءة معاني ذا سيدي وآخرسي ما أركيسي إمي سي جرتي محاضرة سي وجيديني سي إن أحرسي حرنو والله قام مار أرنكاس ضد بدن لكن ويد بصدان أرنكاس تادا نالك أوغا قد بقبلوه قراءة بدن يصوبان نيجين قراءة دي أيام محربة إن تعليقيه qaabkii macallinkooda wuxuu soo baray iyo tajwiidkooda dee ma dhex gelayo howl maaragtay aan geli karo ma ahan aadaabna ma ahan xakamna ma ahi laakiin qur-aankay akhriyeen ayaan rabaa inaan waxyaale ka sardiyo. gabadha koowaad waana tacliiqinayaa yacni 30 sekan ayaan ku tacliiqinayaa mid walba. gabadha koowaad ilaahay barakeeyey waxay akhrisay qiraa'o macaan badan wa yawma naxshuruhum jamiican thumma naqulu alladhina ashrakuu ancam ayay dooratay. xaqiiqatan qur-aanku waa maa'ida wax walbaa ku jiraan hilibaa ku jira tufaaxa ku jira cambaa ku jira waa maa'ida ballaaran lagu leeyahay tafadal ole huufa mid ka qaado meel cariiriya oo lagu leeyahay rootigan ku go ee cad ka goosa ma ahan waa loo fasaxa marka meeshaad rabto ka akhri ayaa la yidhi xorriyada walaada inay tabad akhrido birabbinaas akhrido inay baqarada akhrido sida dhacday ويوم نحشرهم أي كبل وضي واحد تعليقين يا آية بحق يكون كانتي وإله يري وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب qofka maahirka waxa lagu yaqaanaa samid xataa ma uusan gelin inkastoo ilaahay ancaam oo dhan nooga dhigay isdaba dhigay lahwun wa lacib oo isku xijiyey uusan isdaba marin wixii ku yimaadoo dhan oo duca ku daray maarata waxqabad ayaa hawshaan u timid
waxaan leenahay ilmihiinna wejigiinna dhulka way ka qaadeen kor ayaa madaxiinnu maanta yahay ma xishoonaysaan waad faanaysaan maxfallada waa ka sheekay kartaan ma isku mid a odagii loogu soo bishaaray ama hooyadii loogu soo bishaareeyey gabadhii railwaygii xudunta dureed dharkiina waaba ay siibto ilbaxnimo xumo u aragtay meelaha ay ordaysay waalidka lagu soo yiraa iyo waalidka gabadhiisii leedahay awal iyo aakhir meeshii raba halaiga weydiiyo way kanaa labadaas qofood isku karaami miyay dareemayaan isku karaami ma dareemayaan midna waa ka dhuumanaya meelaha dadku isugu yimaadaan midna waa faantamaya wuxuu leeyahay maaragtay kaalaya fiirsada fa ayu lfariiqayn axaqu bilamni in kuntum mu'miniin ayu lfariiqaynu khayrun maqaaman wa axsanu nadiyan isku mid maahan waalidka waxaan leeyahay arrinkaa ilaahay uga mahad celiyey fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih dhaha maaragtay lawla an hadaana allahu maaragtay ma aanan hanuunin haddaan ilaahay nagu hanuunin lahayn dugsigan iyo hawshaan iyo dadka ka shaqeeya saas ayaan leeyahay waalidkaa waxaan leeyahay ilaahay idin barakeeyo baarinimadii ilmihiinana adduunkaad ku kasbateen inaad aakhiro ka helaysaan mid ka wanaagsan way ii muuqataa waxaan leeyahay ubadka iyo gabdhaha hawshaa soo bandhigay waxaan leeyahay waxa koowaad ood cilaajisaan ha noqoto ikhlaaskiinna salafkiina waxay dhihi jireen ma aanan daaweyn cudurka weyn ikhlaas la'aan ha noqoto qur-aankaad akhrinaysaan laa aabbaan loo akhrinayn walaa hooyo waxaan loo akhrinayn codkeedu sidee yahay aakhiradaadaad u akhrinaysaa iyo inaad muslimiinta ku anfacdo hadafku kaas marka koowaad ha noqo ilaahay markaa kadib uu kugu xifdinaya waxaa tihin ahlulcilmi ayaa tihin binasri qur'aan juhala maahidin culumaa tihin bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuriha uutu lcilm aladiina uutu lcilma ahlulcilmi weeye inkastoo dacdoodu yaro tahay haddana lama dhigi karo dad culamaa maahan waa ahlulcilm qur-aankii ayaa dilay ahlulcilmi haddaba waa inaad cilmigiinna intuu idin farayo aad ka soo baxdaan qaarkood inaysan qaan gaarina laga yaabaa waxaana laysku raacsan yahay ilaahay markuu yidhi yaxya yaa yaxyaa khudil kitaabi huwa wa aataynahu lxukma sabiya xukunkaas la sheegayo kitaabkii ayaa yaraan lagu siiyey nin walba ee isagoon qaan gaarin qur-aanka xifiyana wuxuu la mid yahay midkii yaraanta xikmadda lagu siiyey bal nin isagoon baqaan gaarin xikmad la siiyey yaraantiisa iyo lixda markuu gaaro yaa la fadhiisanaya yaa la hadlaya yaa la murmi doona wuxuu ilaahay yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa haddii aysan ahayn ummad isku wada xiran oo ka wada shaqaynaysa sida ubadkooda ku meel maraan hal cunug qur-aanka ma barteen waxaana idinkugu filan 11 gabdhood ama 12 gabdhood sanadka haddaad soo saartaan soomaalida filan oo dhan joogtaba xufaad ka dhigteen reeras bay xaggan u socotaan maasha allah xaggan u socotaan maasha allah ayaan leen anagu si adisheen idinkugu dhicin laakiin saas inayna caadaysana loo baahanya waxaan leenahay waa idinka arka hal wiil ma aragno laakiin niyadda kama jirinayna sanadka kale nu qabanayna sanadka kale 2014 bishaan oo kale ayaan u qabanaynaa hadday la yimaadaan wiilal badan tabiica waa nicm haddii kalena waxaan leenahay meeshaad gabadha u doonanaysaan aad guursanaysaan adinkaa yaqaana intaas ayaan ku soo koobaya wasala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin inta maanta isugu timid halkan mashaahidda sharafta leh waalidiinta iyo caruurtooda waxaan idinku salaamayaa salaamta qiimaha qaayaha leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladan maanta qiimaha qaayaha leh aad u quruxda badan waxaan u malaynaa noloshooda waxaan u malaynaa inay tahay tii ugu horeysay xaflad noocaana inaan kasoo qayb galo maanta ilaahay ii sii fursad inaan xaflad qur-aanka gabdha yaryar inay qur-aanka ku xifdiyaan aan kasoo qayb galo aad iyo aad waan ugu faraxsanahay run ahaantii xafladan markii ay dhahaysay qur-aanka la akrinayo shucuurtaydu aad iyo aad ayaa u kacday waa ilmeeyey aad iyo aad ayaan u ilmeeyey gabdho yaryar oo qur-aanka xafidsan oo maasha allah oo jooga finland gaar ahaan esbo ayaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan idinkala soo qayb galo waxaa laakiin meesha aan la yaabanahay mashaahidan hore ay u sheegeen waxaa halkan ka maqan doorkii wiilasha ayaa meesha ka maqan waxaa maanta caddaatay marka baaritaan la sameeyey xataa iskuullada inay wiilashii xagga waxbarashada ay kaga liitaan gabdhaha waxaan u hambalyana marka gabdhaha soomaaliyeed inay halkaas dagaalkooda ka sii wadaan ayaan u hambalyanayaa waxaan marka maanta sii ogaaday oo kale masaajidka qaar allaha siiye maanta natiijadii masaajidka inaan maanta garanayno waxaan maanta ii soo baxday oo kale
in masaajidka howlaha lagu hayo uusan ahayn howlo sahlan in maanta miritaanka masaajidka oo halkan maanta aan isugu nimid dhammaanteen waalidiinta inay tahay arrin weyn. waxaan u mahadinaa marka maamulka masjidka iyo macallimiinta ku hoolan inay ilmahooda ay baraan qur-aanka kariimka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. teeda kale macallin suguul ayaa hore u sheegay wuxuu yidhi diinta waa lasoo laabanaa. waa run diinta muslimka ah ayadaa loo soo hirin doonaa insha allahu tacaala. waadna muuqataa maalinba maalinta ka dambeysa inay dadka soo muslimayaan oo arkaysaa. waxyaala u weyn oo haddaba bini aadamka ilaahay siiyo waxaa ugu fiican diinta ayaa ugu wanaagsan. maal wuu dhammaayaa, lacag way dhammaanaysaa, waxa ku raacayo adduun iyo aakhirada aad mataqaanaa kula socon doono waa diinta. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax kale lama siin, adduun waa la siin lahaa nabigeena, laakiin waxaa la siiyey nabigeenna waxaa la siiyey qur-aanka ayaa la siiyey iyo faatixada. walaqad actaynaaka sabcata min almathani waalqur'aan alcadiim. nabiga ayaa la siiyey intaas. ilaahayna wuxuu weli nabiguna uu ka dhigay ninka ugu wanaagsan dunida. halkaas waxaa ka cad in ay diinta ay wanaagsan tahay. marka waxaan hadalkayga ku soo koobayaa iyadoo la yidhi waqtiga ayaa aad u yar. waxaan leeyahay aad iyo aad dadaalkaas halkaas ka sii wada. waxaan baryana waalidiintii dhashay hablahan maanta qur-aanka qalinjibiyey oo korkeena qur-aanka ku dul aafiyey hambari ayaan u soo jeedinayaa, iyo waalidiintii kaleba sidoo kale ka soo qayb gashay hambari ayaan u soo jeedinayaa. kulligiin waa idin salaamay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib insha allahu waxba badan anuu ma dhahayo. haddii wacdi ahayd, haddii qur-aan akhris ahayd, haddii maxaanku idhahdaa mahadcelin waalidiinta iyo macallimiintii iyo dadkii arrimahan soo abaabulay ahaan lahayd horey baa looga hadlay. anugu waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya afka waalidiinta kana mid ah waalidiinta ee carruurtooda hadda qur-aanka dhammaysay, kana mid ah weliba kuwa hadda maaragtay aan weli dhammaynin oo qur-aanka dhigto. anoo afkooda ku hadlaya ayaa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii howlahan ka soo qayb qaatay oo ugu horeeya macallimiintii qur-aanka soo bartay carruurtayadaas. ilaahay baa subxaana watacaala mahad iskale. midda labaadna ayagaan mahad ballaaran u celinayaa. ilaahay subxana watacaala ajir ha ka siiya xasanaad. waayo haddaan la iskaalmaysanin, soomaalidu waxay tidhahdaa gacmahooda jir bay wax ku gooyaan. iskaalmaysi macallimiintii iyo waalidiintii iyo maamulkii ayaa lagu soo saaray carruurtan. hadday qolo ka mida meesha ka bixi lahaayeen oo boos lagu dhigto keliya haddii la waayi lahaa oo qaybta maamulka xitaa waxba ma suura galeen. haddii macallin la heli waayi lahaa ama macallin isla jiri lahayn wax lama barteen. marka iskaashigaas ayaa intaa lagu soo gaaray. mar labaad ayaa waxaan u mahadcelinayaa dadka waalidiinta oo carruurtan juhdiga badan kusoo bixiyey. waxaan ilaahay subxana watacaala uga rajaynayaa iyagana kuwii qur-aanka ku sugnaado oo xifdigiisa iyo ku dhaqankiisa ilaahay subxana watacaala ku sugo. waxaan kula dardaaramayaa juhdi badan baad soo samayseen. qur-aanka in la xifdiyo wax macallimiintiisnimaa ka warbixisay, yuuna idinka fakanin. nebiga sal ly slam qur-aanka wuxuu ku sheegay neef geel ah oo inta xarig lagu xiray la sii daayey. rasuulka asxaabta weydiiye wuxuu yidhi ma sii taagnaanaya mase wuu soconaya? markaas waxay yidhahdeen wuu iska tegayaa. qur-aankuna sidaasoo kale weeyaan. marka qur-aanka intaa lagu soo dhimanaya adinkuna aad soo baranayseen ha isdhihina waad qalin jebiseen oo waad ka gudubteen. marka wax badan baa soomaalida waxaa lagu arkay qof dhaho anigu qur-aanka 4 jeer baan dhameeyey laakiin aan kicin karin. marka waad iloobaysaan, meeshiina waad ku noqonaysaa. wixii juhdi aad soo bixisayna waxay noqonaysaa waxaan waxba noqonin. dadaalkii halkiina ka sii wada inaad qur-aanka xifdidaan. dadka soomaalida waxay dhihi jireen oo maaragtay qur-aanka yaqaan adeer weli ma kitaabku kaaga jiraa? macnaha waxay ka wadaan ma kitaabaadba qur-aanka akhrisaa adigoo intaa la eg? ceeb bay ahayd. marka hadda kitaabka iyo qur-aanka in ka gelin kor ka qabta insha allahu tacaala. ardayda intaasaan leeyahay. waalidiintii juhdiga ku soo bixisay ilaahay subxaana watacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo. horey baa lagu mahad celiyey. kuwa hadda dhiman oo carruuraha oo dugsiga mar baa xasuustaa meeshaan iyo dugsiyadan waqtiyada lasoo aas-aasayey ayba carruurba jooginba dhowr xabaa loo dhigi jiro yar yar. haddana maasha allah waad arkaysaa waxa buux, wayna sii socon doonaan. marka kuwa hadda ku xigana ha ka ficil qaateen kuwa hadda dhameeyey, ama wiilasha ha noqdeen ama gabdhaha ha noqdeen. ha isku dayan sanadka dambe, hadda 4 iyo 10 weeyo, sanadka dambe inay 10 kale ku darmato 4 iyo 20 noqdaan. kan kusii xigo ay sii bataan insha allahu tacaala. waalidiintana intaasaan kula sitanaya kuwa ayna weli qur-aan ka dhammaynin. aad baan kugu mahad celinaya. meeshuna way kulushahay, warkuna wuu badnaa. muhiimadeeda waxaa weeyaan inaan dadkaas guud iyo macallimiintii iyo waalidiintii anigoo ku hadlaya afkooda inaan u mahad celiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam wabacd.
ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala meesha isugu keenay waxaan u mahad celinayaa culimmada ii yeertay ee culimmada i mooday anigoon culimo ahayn waan ka xumahay maadaamaan dugsiga wakti fatrad aan soo maray oon macallinka ahaa ayaa maaragtay haddii waa la kuuray aan sharafta ka soo qayb gashay aan ka mid noqday waxaan leeyahay shalay waxaan joognay sidaan oo kaleeto xaflad ah oo masaajidka alhuda baasila lagu qabanayo oo taxfiid alqur'aan ardayda qur-aanka dhammaystiran 12 arday maantana waa inteedii wey oo isba ah halkaa waxaan leeyahay waxaa ka soo hoyday guul ballaaran oo ummadda islaamka ah khaasatan ummaddan ku hadasha luqada soomaaliga allah subxaanahu wa tacaala xikmad buu u keenay waddamadan qurbaha ah ee reer galbeedka ah een qur-aanka aqoon een xijaabka aqoon jilbaabka aqoon khamiiska aqoon salaada iyo masaajidka aqoon haddana loogu daray taxfiid alqur'aan iyo xafladihiisii loogu daray waxaan xusuustaa maalmaha ka mid a nin caraba baan qaaday 42 sano ayaan waddankan Finland joogay buu yidhi markii ugu horreysay aan arkay gabar muslimada oo xijaab qabta wuxuu yidhi 3 saacadood baan ilmeynayay buu yidhi waana daba socday buu yidhi railway stationkan ku arkay buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi boolisku inuu mutaabaceeyo ee waxaan weydiin lahaa meesha ay degan tahay baan weydiin lahaa waxay noqotay buu yidhi Soomaaliyeed bay noqotay buu yidhi waxaan ku joognay buu yidhi ummad carab ah waddankan baan deganaan jirnay ma aanaan aqoon masaajido musallayaad ma aanaan aqoon fadligaas ummadda Soomaaliyeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gaar u siiyey xikmad buu inoo keenay waddankeenna xikmad buu u burburiyey war badan looma baahnee waa in gacmaha la isqabsadaa la isu duceeyaa culimmada iyo maaragtay ragga soo saaray ducaadda ee soo saaray ilmaha loo duceeyaa carruurta loo duceeyaa halkan waxaan maqlayaa waxaa laga sharqaminayaa kaalintii wiilasha ayaa maqan insha allah ilaahay dabkii sida ay sheegeen raggi iga horreeyey macallin shiikhow carabka ku dhuftay sanadka soo socda insha allah 2014 tartanku waa wiilasha weeye aabba kastana waxaa laga doonayaa wiil ama 2 wiil baa laga doonayaa ninkii wiilkiisa diyaarinaya gacanta ha taago hala keeno aabbayaasha wiilasha hala keeno wiilashu taxfiidka ha ka qayb jinniba allah ka xifdiyo waalidiintood allah ha ciseeyo taashka aakharaad allah ha u saaro ciziga adduunna allah ha siiyo inta xafladan soo hagaajisay iyo intii soo maamushayna dembigooda iyo kii waalidkooda allah ha dhaafo inteenna ka soo qayb gashayna dembigeenna iyo kii waalidkeenna allah ha dhaafo hadal jacayl baa hadalka igu dhiibteen baan u malaynayaa waan iska reeb mudugaynaya waa iga qabsada subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamu calaa mursalin insha allah cabduqaadir asagu anigii qur-aanka xifdiyey ku dhaqmay ilaahay kuu dhigayaa inantii qur-aanka soo xifdisay kuna dhaqantay hal kuu dhigayaa bal xaaladan hadda la joogo iyo meelo iyo waddamo noocaana qofkii qur-aanka ku xifdiya oo haddana indhihiisa qarsada oo haddana qur-aankii ku dhaqma haddana qiyaam la imaada haddana sunantii ku fudhiya wuxuu ka ajar badan yahay qof diyaarul islaam iska jooga musnad abi daawuud bisanadin xasanin rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa laga warinayaa inuu yidhi man qara'a alqur'aana wacamila bima fiih ulbisa man qara'a alqur'aana wacamila bima fiihi ulbisa waalidaahu taajan yowma alqiyaama daw'uhu axsanu diya kuna dhaqma waalidkiisii maalinta qiyaamo waxaa loo labisayaa taaj ayaa loo labisayaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taajka aabbaha iyo hooyada loo gelinayo daw'uhu axsan min daw'i shamsi quruxdiisa iyo ilayskiisa iyo iftiinkiisa wuxuu ka qurxoon yahay qoraxda iftiinkeeda ayuu ka qurxoon yahay waddanka waa waddankeena Finland ay saarto oo waddan aan ilaaku ilmaha ayaa qofku iyo laba saddex afar shan lix kun bulahay alxamdulillah meesha aan hadda leenahay ayaa la furay 2000 hadda waxay furan tahay muddo 13 sano ayay furan tahay dad badan ayaa soo dhiibay dad badan baa ka qayb qaadan jiray markaskan hadda socda waxaan leeyahay Soomaalidu in badan uu iska socdaa uu furan yahay uu iska furan yahay balki in badan waxaan leeyahay muslimiinta Soomaali ayaa ka faa'iideystaan laakiin waxtarkeeda boqolkiiba waa hal baan leeyahay insha Allah waxaan si gaar ah waalidiinta isku soo dhibay xafladan
suurageliyeyna in aan maanta halkan isugu nimaano oo juhdi badan geliyey khaasatan waxaan usii mahadcelinay aniga gabdhihii labada beri ku dhafraayay cunto karinta oo jiif iyo joogba u diiday wakhtigoodana ku dhameeyey inay mataqaanaa xafladdan maanta ay sidaan mataqaanaa u qurux badnaato anigu waxaan idin leeyahay walaalayaalow gacmaha halis qabsado halis cafiyana wax kasta khaladaad waa dhici karaa qofka markuu shaqo bilaabo baa khaladaad ka dhici karaa qof aan waxba qaban khalad kama dhaco annagu haddaan khalad ku jirnay ama khalad naga dhacay hanala cafiyo cafis baa idin weydiisana waalidiinay mar walbana idinkaan idiin taagannahay siduu macna sugula sheegayna waxba kuma qaadan aniga cabdirasaaq meeshaan nuur xafsa xafsa gabdhihii maanta lama garanayo aniga waa kala garanaya indhahan ka aqaan aniga ima fakanayaan ilaa yaraana la joognay xafsa waa xishoonaysaa ayaanaa ku siinaya jazaaka allah khayr saasaan rabaa joog cabdiraxmaan yaasmiin axmed amaal سعيد موسى عبدي سويدة هذا عبدي سويدة هذا عبدي عبد الله أمون عبد الرشيد عبد الله هذا سيدي فينش كذا يبغى هاي معلم كذا تويستك معلم كذا خديجة هذا النور الجيري ما شاء الله الله بركة خضر عبد الرزاق سهولة نجمو آدم محمد نجمو أكتر فقيدة كذا سمعني جزاك الله خير بريرة عبد الحكيم بريرة ما شاء الله ما شاء الله أنت سوا قيمتي أبدا وزمن تاسع كبرى أمال سعيد الله أديكان وآمنا يو أود السماء سواتاده إلنا حريسك لونه إيك إلنا حريسك لونه إيك إلنا حريسك لونه إيك الله ابن آدم بانها يو قف كانوا أدوك ورقايا الله استغفار تؤنقايل الله استغفار تؤنقايل الله أديكان وآمنا يو أود السماء سواتاده إلنا حريسك لونه إيك إلنا حريسك لونه إيك إلنا حريسك لونه إيك الله إلكيو قبرا السوقي مركي اختبار سؤاشو أتكان afkayga ku beeg islaamnimaduun afkayga ku beeg islaamnimaduun